Eli Cohen oo magaciisa afgarashada uu ahaa sarkaalka 88aad waxa uu ahaa sirdoonkii ugu yaabka iyo mucjisada badnaa taariikhda abid sirdoonada caalamka inkastoo dhacdadani ay dhacday nus qarni ka hor haddana goordhow baa si faahfaahsan loo helay qisadan taariikhiga ah Eli Cohen weligiis meel fagaara ah khudbad kama jeedin taas ayaana keentay in aan ninkan noloshiisa wax badan oo faahfaahsan laga aqoon sidaas darteedna uu ku noqday basaas aan weligiis laga shakin ilaa maalintii la qabanayay maahay Eli Cohen oo Syria looga yaqaanay Kamal Amin Thabit waa mid ka mid ah jawaasiistii ugu magac dheeraa ee dunidan soo maray isaga oo Yahuudi ah ayuu haddana awood u yeeshay in uu iska dhigo Syrian kadibna dhex galo madaxda ugu sareysa Syria ilaa uu la taliyo u noqdo madaxweynihii Syria sanadkii 1961 ilaa 1965 waxa uu dhowr jeer tagay buuraha Golan Heights oo markaas ay Syria haysatay iyada oo macluumaadkii uu ka soo ururiyayna ay sabab u noqotay dagaalkii 6 maalin in ay Israa'iil 2 maalin oo kaliya ku qabsato buuraha oo ay ilaa iyo haddana haysato waxay aad u sugu dhawaayeen madaxweynihii xilligaasi ee Syria Amin al-Hafiz oo uu gacan ka siiyay afgambigii uu dalkaasi ku qabsaday taas oo awood u siisay in uu galaangal u yeesho macluumaad badan oo sirdoon iyo military oo uu dalkaasi lahaa waxa la sheegaa in xitaa loo soo bandhigay in uu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga haddaba aan ku bilaabo qisada ninkan oo mucjiso ahaa Eli Cohen markii uu ku biiray sirdoonka Israa'iil durbadiiba waxaa loo diray koonfurta qaaradda Ameerika gaar ahaan wadanka Argentina si isaga oo aan laga shakisnayn uu halkaas uga soo galo wadanka Syria oo ahaa qasadkiisa basaasnimo howlgalkii Eli Cohen waxaa sababtiisii lahaa dhaqdhaqaaqii siyaasadeed ee wadamada Masar iyo Syria ee xilligaasi socday Jamal Abdel Nasser oo ahaa madaxweynihii wadanka Masar ayaa saxiixay heshiis lagu mideynayo wadamada Suuriya iyo Masar kaasoo loogu magac daray dawladda midowga Carabta Israa'iil ayaa tallaabadaasi ay ku midoobayaan labada dawladood ee Carbeed u aragtay khatar ku soo wajahan jiritaankeeda Israa'iil waxaa xilligaasi ku adkaa in ay wax xog ah ka hesho dhaqdhaqaaqyadii ka socday gudaha Syria sidaasna loogu baahday ninka Eli Cohen ah in uu u soo basaaso waxa ka socda gudaha dawladda Suuriya Eli Cohen waxa uu ku dhashay magaalo xeebeedka wadanka Masar ee Alexandria sanadku markii uu ahaa 1924 qoyskiisa ayaa kadib u soo guuray magaalada Xalab ee wadanka Suuriya halkaas oo ay in muddo ah ku noolaayeen qoyska Eli oo asal ahaan ka soo jeeda Yahuudda Carbeed waxa uu sanadkii 1957 uu u wareegay dhulka ay Israa'iil maamusho muddo yar kadib waxa uu soo jiitay indhaha hay'adda sirdoonka Israa'iil ee lagu magacaabo Mossad Eli Cohen waxa uu ahaa nin firfircoon oo luuqado badan si fiican uga hadli karay sidaas darteed Mossad waxay u aragtay in uu yahay nin aan looga maarmin howlgalka basaasnimo ee laga fulinayo gudaha Suuriya Mossad ninkan tababarkiisa waxa ay ku bixisay waqti iyo juhdi waxa tababarka basaasnimo ee Eli Cohen ka qayb qaatay 10 sarkaal oo ku xeel dheeraa arrimaha sirdoonka Eli Cohen oo tababarkiisa basaasnimo soo dhameystay ayaa duba shaqadiisa bilaabay isaga oo markan ku howlgalaya magaciisa cusub ee uu la baxay Kamal Amin Thabit waliba isaga oo iska dhigaya ganacsade Syrian ah Cohen inkasta oo luqadda Carabiga uu si wanaagsan uga hadli jiray haddana waxa uu sii baahday in uu si qoto dheer u barto lahjada looga hadlo gudaha Syria waxaana arintaasi gacan ka siiyay sirdoonka Mossad qaybta sida gaarka ah u qaabilsan luqadaha ee la yiraahdo 131 howlgalka Eli Cohen ayaa ku bilowday safar raatirasho ah oo uu ku tagay wadanka Switzerland sanadku markii uu ahaa 1961 kadibna waxa uu ka degay magaalada Buenos Aires ee dalka Argentina halkaas oo ay ku noolaayeen qurbajoog aad u tiro badan oo Syrian ah markii uu yimid Argentina waxa uu dhex galay qurbajoogtii reer Syria ee halkaasi deganayd wuxuuna u sheegay in uu yahay ganacsade asal ahaan Syrian ah taasoo u sahashay in uu ku dhex milmo bulshadii halkaasi ku noolayd Cohen waxa uu ku guuleystay in jaaliyadda Syria ee Argentina joogtay uu ku qanciyo in ay ka caawiyaan sidii uu ku heli lahaa baasaboor Argentina ah iyo sidii uu fursado ganacsi uga dhex abuuri lahaa wadanka Syria dadkii uu la kulmay waxa kamid ahaa nin Syrian ahaa oo lagu magacaabi jiray Abdul Latif Al-Khashin oo markaasi ahaa tifaftiraha wargeys af Carabi ku soo baxa
oo lagu magacaabo Arab World sidoo kalena xubin ka ahaa waaxda dalxiiska. basaaskii Cohen oo markan adeegsanaya magaciisa cusub ee Kamaal Amiin Thabit ayaa waxa uu tifaftirihii Carbeed u sheegay in uu doonayo in uu ganacsi ka sameeyo wadamo badan oo Carbeed gaar ahaanna in uu ka shaqeynayo arrimaha dalxiiska. Cabdilatiif oo aan war u haynin howlaha shirqool ee uu basaaskani maleegayo ayaa aad ula dhacay halabuurka ganacsi ee uu ninkani soo bandhigay. wuxuu u qoray warqad uu ku cadeynayo heerka maalgashi ee ganacsiga Kamaal Amiin Thabit wuxuuna u kala diray saaxiibkiis oo ku noolaa Lubnaan iyo wiilkiisa oo ku noolaa magaalada Dimashq ee waddanka Syria. wuxuuna ka codsaday in ay caawiyaan ganacsadahan. bishii December 1961 Cohen oo ku wajahan howlgalkiisa Syria ayaa waxa uu ka degay magaalada Genoa ee dalka Talyaaniga halkaas oo uu ku soo dhaweeyay sirdoon kale oo u shaqeynayay CIA-da Mareykanka iyo howlgalka NATO. waxaa la kulansiiyay nin kale oo sirdoon ah oo isna Syrian ah oo lagu magacaabo Majid Sheikh Al-Ard. ninkaas laftigiisa waa lagu qalday waxaana loo sheegay in Kamaal Thabit uu yahay sirdoon u shaqeeya isbahaysiga NATO. Majid ayaa laga codsaday in uu Kamaal Thabit ka caawiyo sidii uu ku gali lahaa waddanka Syria. 3 maalmood kadib imaanshihiisa magaalada Genoa waxaa loo diyaariyay gaarigii lagu galbin lahaa kaasoo lagu diiwaan geliyay magaca Majid Sheikh. gaarigaasi oo ku diiwaan gashan magaca Majid ayaa lagu qaaday wixii agab ahaa ee uu watay Kamaal Thabit. 8 January 1962 Majid iyo Kamaal oo ku sii jeeda magaalada Beirut ee dalka Lubnaan ayaa safar badda ah ku ambabaxay. iyaga iyo gaarigoodiiba waxaa markab uu ka qaaday degada Isberia ee dalka Talyaaniga iyaga oo ku sii jeeda Beirut dalka Lubnaan. iyaga oo wata gaarigoodii ay ka soo safriyeen dalka Talyaaniga ayaa waxa ay ku soo galeen waddanka Lubnaan. Majid ayaa waxa uu la xiriiray nin ay saaxiibo ahaayeen oo lagu magacaabayay Ibn Khaldun oo kamid ahaa ilaalada xuduudka Syria iyo Lubnaan. wuxuuna ka codsaday in uu ka caawiyo sidii ay gaarigooda ula gali lahaayeen dalka Syria. safar dheer kadib Kamaal Thabit ama Eli Cohen magaca doontaba ugu yeeray waxa u suurta gashay in uu gaaro magaalada Dimashq ee dalka Syria. Kamaal Thabit oo ku howlgalaya in uu yahay ganacsade ayaa waxa uu doortay in uu dego xaafadda Abu Rumana oo ah meel ay ku badan yihiin diblomaasiyiin, siyaasiyiin, safaarado, xarumaha qaar ee militariga iyo guryo ay degan yihiin dad kale oo magac leh. ujeedka uu xaafadaasi u doortay waxa ay ahayd in uu si fiican u dhexgalo lana socdo arrimaha gaarka ah ee Syria. 5 maalmood kadib imaanshihiisa Dimashq waxa uu la xiriiray madaxdiisa sirdoonka ee gudaha Israa'iil isaga oo la wadaagay fariintiisii ugu horeysay isagoo u sheegay in uu si nabad ah ku yimid Dimashq. intaas kadib Kamaal ayaa bilaabay shaqadiisa isaga oo la kulmay Kamaal Al-Khashin oo ah wiilkii uu dhalay tifaftirihii wargeyska Arab World ee uu kula soo kulmay waddanka Argentina. labada Kamaal waxa ay si mug leh uga wada hadleen qorshaha sida loo hirgelin karo ganacsiga Kamaal Thabit uu u soo bandhigay. Kamaal Al-Khashin oo fulinayay awaamirtii aabihiis ayaa ninkan Kamaal Thabit ah waxa uu la kulansiiyay nin kale oo lagu magacaabayay Mazi Zahruddin oo ah wiil uu adeer u yahay taliyaha ciidamada militariga Syria. taasoo Kamaal Thabit ama Eli Cohen u ahayd arin muhiim u ah howlihiisa basaasnimo. Kamaal ayaa si furfuran ula tacaamulayay hadba shakhsiyaadka uu u arko in ay yihiin kuwa howlgalkiisa basaasnimo muhiim u ah isaga oo maalinba dad hor leh la kulmayay kuwaas oo uu arkayay in ay yihiin kuwa uu ka heli karo xogaha ay Israa'iil doonaysay. Eli Cohen xilligaas oo uu shaqadaasi ku jiray waxa si xoog leh u jiray ugaarsi aad u ballaaran oo ay Israa'iil ku haysay madaxdii Naaziga dalka Jarmalka ee xasuuqa u geystay dadyowgii Yuhuudda ee ku noolaa qaaradda Yurub. isla xiliyadaasi sirdoonka Mossad waxa ay dalka Argentina ka soo qabteen oo Israa'iilna ka soo dejiyeen nin lagu magacaabi jiray Adolf oo kamid ahaa madaxdii ugu sareysay taliskii Naaziga Jarmalka. ninkaas waxa lagu dhex maxkamadeeyay laguna toogtay gudaha Israa'iil. markii ninkaas la toogtay kadib haddana Israa'iil waxa ay baadi goob u gashay Alois Bronner Feld oo ahaa ku xigeenkii Adolf ee la toogtay. Alois Bronner waxa la tuhunsanaa in uu ku nool yahay Syria. Alois si aan loo aqoonsan ayuu isna magaciisa u bedelay George Fischer waxaana uu ganacsi kula shirkoobay ganacsato Syrian ahaa. Alois Bronner intuu uu Syria ku sugnaa wuxuu taageero hub ah siin jiray dhaqdhaqaaqii hubaysnaa ee xurnimadoonka Algeria taasoo laftigiisii u sahashay in uu soo dhaweyn ka helo dadyowgii Carbeed ee xilligaasi. haddaba marka ay sheeko halkaas taagan tahay howlaha laga doonayay in uu fuliyo basaaska Eli Cohen
waxaa ka mid ahaa in uu soo baadigoobo halka uu ku sugan yahay Alois Bronner kaasoo ku eedaysnaa doorkii uu ku lahaa xasuuqa Yuhuudda. Eli Cohen si uu u helo xogta ninkaas wuxuu booqan jiray baararka, maqaayadaha, shinoomooyinka, garoomada lagu ciyaaro iyo meelaha kale ee ay dadweynuhu isugu yimaadaan, isaga oo la sheekaysanayay su'aalana weydiinayay dadka ay halkaasi ku kulmaan. baadigoob dheer kadib, Eli Cohen uma suurtagelin in uu ogaado xogta Alois Bronner kaasoo ganacsigiisa u wareejiyay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Muddo markii uu Cohen ka dhex shaqeeyay Syria, waxa uu dib ugu laabtay Israa'iil si ay u kala xog qaataan sirdoonkii Mossad ee shaqada u diray. marka laga soo tago xogta xubnihii Naaziga ee Syria ku dhuumaalaysanayay, sidoo kale Israa'iil waxa ay aad u doonaysay in ay wax badan ka ogaato xogaha ku saabsan isbedelada dhaqaale, military iyo siyaasad ee Syria ka dhex jirtay. Cohen ayaa mar kale dib ugu laabtay Syria isaga oo markan wata qalab casri ah oo xogaha lagu gudbiyo marka loo eego wixii qalab ahaa ee xilligaasi la adeegsanayay. caadiyan qofka sirdoonka ah waxaa lagu tababaraa in aanu ku degdegin dhexgalka dadka magaca leh, ayadoo ay tahay in marka hore uu ka soo bilaabo la tacaamulka iyo dhexgalka dadka dabaqadaha hoose, kadibna uu si tartiib ah ugu gudbo kuwa maalqabeennada iyo dadka magaca sare leh. laakiin haddii uu marka horeba ka bilaabo in uu dhexgalo oo la qabsigood uu raadiyo dadka magaca leh, waxaa dhacaya in markiiba dhaqankiisa laga shakiyo oo sirdoonkuna ay dabagal ku bilaabaan. sidaas darteed Cohen waxa uu dhexgalka ka bilaabay dadka caadiga iska ah oo aan looga shakinayn, ilaa markii dambe ay u suurtagashay in uu la saaxiibo madax iyo saraakiil sarsare oo Syrian ah. Cohen intii uu howlgalkiisa ku jiray waxaa talo lagu siiyay in uusan u dhowaan xarumaha militariga sababtoo ah waxaa loo sheegay in uu uga imaan karo shaki iyo dabagal lagu sameeyo. sidoo kale waxaa loo sheegay in uusan wax lug ah ku yeelan isbedelada siyaasadda oo waqtigaas Syria aad ugu badnaa. Cohen waxaa la faray in uu diiradda saaro 3 qodob oo Israa'iil xilligaas muhiim u ahayd, isla markaana uu ka soo warbixiyo. tan koowaad, in uu ka soo warbixiyo dhaqdhaqaaq kasta oo military oo uu maqlo. qasab maaha in uu u arko dhaqdhaqaaqaasi mid muhiim ah, xitaa haddii uusan muhiim u arkin in uusan dhayalsan oo uu soo gudbiyo. tan labaad, in uu soo aruuriyo soona gudbiyo kuturukuteen kasta oo ku saabsan arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo xaaladaha ciidamada. tan saddexaad, isla markaana Israa'iil ugu muhiimsanayd waxay ahayd in uu wax ka soo barto soona gudbiyo wax kasta oo ku saabsan xaaladda dhaqaale ee Syria, isaga oo arrintaasi uga faa'iideysanaya xiriirkii uu la lahaa Hathim Khutub oo ka shaqayn jiray bangiga dhexe ee Syria. Cohen si joogto ah ayuu uga shaqeeyay in uu helo xogo Israa'iil muhiim u ahaa. xogaha uu la wadaagay sirdoonka Mossad waxaa ka mid ahaa xogihii awoodda militariga Syria, kuwaasi oo suurtageliyay in Israa'iil ay ku qabsato buuraha Golan Heights dagaal waqti kooban socday oo kaliya. xogtii sirdoon ee ugu muhiimsaneyd uguna halista badnayd ee uu Cohen gudbiyay waxa uu ka helay injineer u dhashay waddanka Lubnaan oo lagu magacaabo Michael Saab, kaasoo si saaxiibtinimo ah ula wadaagay mashruuc dhismo oo dhulka hoostiisa ah oo ururka jaamacadda Carabta uu ku doonayay in lagu leexiyo wabiga Baniyaas oo biyaha gaarsiin jiray Israa'iil laguna daro oo la raaciyo biyaha wabiga Yarmouk ee Urdun. ujeedkuna waxa uu ahaa in Israa'iil biyaha laga jaro oo la qatiyo. kaasi waxa uu ahaa qorshe sir ah, laakiin Cohen oo saaxiibtinimo wanaagsan u muujiyay injineer Michael Saab ayaa helay goobta laga fulinayo mashruuca, heerka uu marayo iyo wax kasta oo qorshe ah oo ku saabsan mashruuca biyo weecinta ah, waxaana uu la wadaagay sirdoonka hay'adda Mossad ee Israa'iil. Israa'iil oo xogtaasi ku howlgalaysa ayaa markiiba duqeyn ku burburisay mashruucii biyaha looga weecin rabay. sidoo kalena Cohen waxa uu dhowr jeer ku laabtay oo uu booqday deegaanka Al-Himma oo ay degan yihiin dad asal ahaan Falastiin ka soo jeeda, halkaas oo gacan ku haynteeda ay Syria la wareegtay sanadkii 1948. booqashooyinka gobolkaasi aad loogama shakin karin sababtoo ah dadka badankiis ayaa booqda maxaa yeelay waxaa ku yaala ilo ay ka soo burqadaan biyo kulul, dadkuna dawo ahaan ay u isticmaalaan biyahaas kulul. ma ahan dadka Syria degan oo kaliya, xitaa waxa laga yimaadaa Yurub, wadamada Latin America iyo dalal badan oo caalamka ah. dhinaca kale, sida la wariyo, Cohen weligiis ma dhexgelin xarumaha military ee ku yaala buuraha Golan Heights, isagoo ilaalinaya awaamirtii la siiyay oo ahayd in uusan u dhowaan goobaha military si aan looga shakin. laakiin way dhacday in uu sawiro ka qaaday goobahaasi isaga oo meel fog ka taagan oo aan dareen sirdoonna laga qabin. bishii November sanadkii 1964, Eli Cohen oo aan fasax ka haysan madaxdiisa sirdoonka Israa'iil ayaa waxa uu booqasho ku tagay Israa'iil isaga oo ku andacoonaya in uu ka qayb galayo dhalashada wiilkiisa. Cohen intii uu hawshan ku jiray waxaa ku adkaatay in uu waqti la qaato xubnaha qoyskiisa,
Cohen oo aysan gacanta ugu jirin go'aanka soo laabashada ayaa qoyskiisa u yimid isaga oo aan lahayn dareen farxadeed oo waliba laga dareemayay buuq dhanka maskaxda ah iyo daal fara badan. Muddo yar kadib Cohen waxa uu ku laabtay dalka Syria iyo noloshii sirdoonnimo. Wuxuu markan helay xogo kale oo ku saabsan xubnihii Naaziga ee ku dhumaalaysanayay Syria. wuxuuna xogahan qaarkood ka helay saaxiibkii dalkan soo geliyay ee Majid Sheikh oo isagaba ka tirsan sirdoonka NATO. maalin ayuu Cohen la xiriiray madaxdii shaqada sirdoon ee Mossad isaga oo xog ka waday nin lagu magacaabo Frank Red Mark oo Naazi Jarmal ahaa, laakiin si lama filaan ah waxaa loo sheegay in uusan wax waqti ah isaga lumin dabagalka ninkaasi Franka ah, isla markaana uu diiradda saaro howlaha kale ee ka muhiimsan xogtaas. jawaabtaasi Cohen la siiyay niyad jab ayuu ku abuurtay, sidaas darteedna wuxuu bilaabay in shaqooyinka qaar uu isaga iskiisii u maareeyo, waxaana halkaasi ka bilowday qaladaadkii dhabaha u xaaray in la soo qabto. Cohen isaga oo weli ganacsada matalaya ayuu maalin kulan 40 daqiiqo soconayay la qaatay laba nin oo sirdoonka Syria ay basaasnimo ku ogaayeen kuna raad joogeen. kulanka kadib sirdoonka Syria ayaa ka warhelay arintaas, laakiin waxa ay ku wareereen qofka uu yahay ganacsadaha ay la kulmeen labada nin ee basaasnimada ay ku ogaayeen. Israa'iil haddii ay sidaas wax u ogaan lahayd markiiba waxa ay Cohen ku amri lahayd in uu degdeg ku aado magaalada Beirut wadanka Lubnaan si uu isu badbaadiyo, laakiin ma dhicin. ayadoo oo weli sirdoonka Syria ay ku raad joogaan oo ay raadinayaan ganacsadaha ay wada kulmeen labada nin ee basaasiinta ah, ayuu haddana Cohen galay qaladkiisii labaad ee ugu weynaa, kaasoo ahaa in uu Cohen uu bilaabay in uu si joogto ah u isticmaalo raadiyihii uu xogta ku gudbin jiray, kaasoo markii hore ee tababarka la siinayay loo sheegay in uusan isticmaalin wax 2 daqiiqo ka badan. laakiin markan si aan qiyaas lahayn ayuu raadiyooga u isticmaalayaa, waana mid baalmarsan xeerkii tababarka sirdoonnimo ee la siiyey. sirdoonka Syria oo isticmaalaya qalab casri ah marka loo eego wixii markaasi la adeegsanayay laguna soo sameeyay midowgii Soviet ayaa uu shaki ka galay dhawaqa iyo codka raadiyo oo aan diiwaan gashnayn oo lagu isticmaalayo gudaha magaalada Dimashq. ayadoo shakigaasi uu taagan yahay ayaa sidoo kale isla waqtigaas dawladda Syria waxa cabasho soo gaarsiiyay safaaradda Hindiya ay ku leedahay Dimashq, ayadoo ka cabanaysay in uu jiro signal carqalad ama dhexgal ku sameynaya qadka safaaradda. madaxweyne Amin al-Hafiz madaxweynihii Syria ee xilligaasi ayaa ku amray madaxii sirdoonka Syria Ahmed Suwaydani in uu baaro halka uu ka imaanayo raadiyoogan carqaladeynaya qadadka safaaradaha Syria ku yaala. waxaa la ogaaday raadiyoogan waxa carqaladeynaya in uu yaalo guri aan ka fogeyn meesha ay safaaraduhu ku yaalaan. howlgalkii koowaad ee sirdoonka Syria waxa ay ku beegsadeen dhismo ku dhawaa safaaradda Hindiya oo cabashada keentay. dhismahan ayaa ah macadka dhaqanka Faransiiska, laakiin sirdoonku waa uu ku hungoobay howlgalkaasi, wax qalab ahna way ka waayeen. waliba kaaga daranay xilligaasi labada dawladood ee Faransa iyo Syria xiriirkooda aad ayuu u wanaagsanaa, laakiin howlgalkaasi dartiis xalaqaadkii labada dawladood madmadow ayaa soo kala dhex galay. sirdoonka Syria ayaa sidoo kale ka shakiyay in carqaladeynta raadiyoogan aan diiwaan gashnayn uuba ka imaanayo isla gudaha safaaradda Hindiya, iyana waxay ahayd mushkilad kale oo jahwareerisay howlgalka sirdoonka. Cohen oo aan ka warqabin baaritaanka socdo ee sirdoonka Syria ay wadaan ayaa iska sii watay adeegsiga faraha badan ee raadiyooga. sirdoonka Syriana waxa ay marba hab cusub u adeegsanayaan howlgalkan ay ku soo ogaanayaan raadiyoogan goobta uu yaallo iyo qofka adeegsanaya. si kastaba sirdoonka Syria way ku adkaatay in ay soo saaraan qofka raadiyoogan adeegsanaya iyo goobta uu joogo, laakiin maalintii dambe Ahmed Suwaydani madaxii sirdoonka Syria waxa ku soo dhacday in uu la xiriiro nin ay ciidamada ka wada tirsanaan jireen oo hadda ah injineer howlahan ku xeel dheer oo Jarmalka degan. Ahmed Suwaydani inta uusan injineerka la xiriirin waxa uu la wadaagay Amin al-Hafiz madaxweynihii xilligaasi iyo saraakiishii kale ee sirdoonka xilli uu jiray kulan kala warqaadasho ahaa. waa laga ogolaaday in injineerkaasi caawin la weydiisto. ugu dambeynna sirdoonkii Syria waxa u suurta gashay bal in ay marka hore xadidaan goobta uu raadiyoogan ka imaanayo, kadibna sirdoonku waxa ay kireysteen apartment ka mid ah dhismaha. madaxii tamarta ayaa laga codsaday in dabka korontada la gooyo muddo ilbiriqsi ah marka uu raadiyoogu bilaabo shaqadiisa. kaliya muddo dhowr ilbiriqsi ah ayaa dabka la jarayaa, haddana dib ayaa loo soo fasaxayaa iyadoo oo dadka deegaanku aysan cilad dareemin. 3 isku day oo la sameeyay kadib si dhab ah ay sirdoonku u garteen dhismaha uu raadiyoogu yaallo. waxyar kadib ciidan dharcad ah oo hubaysan ayaa xoog ku galay apartmentigii uu ku jiray Eli Cohen. waxay fatasheen qolalkii, musqulihii iyo jikadii intaba, laakiin nasiib darro waxba ma aysan helin. kaliya waxa ay arkeen miis uu buugaagta iyo wargeysyada ku akhristo.
iyo walxa kale oo aan muhiim ahayn oo meesha yaalla. mar ay quusteen oo ay damceen in ay baxaan ayaa mid ka mid ah askartii waxa uu lugta ku dhuftay xarig waayar ahaa oo miiska hoostiisii marayay. askarigii oo bastoolad ku qabtay Cohen ayaa weydiiyey xarigan aaladii uu ku isticmaalayay, kadibna waaba raadiya lagu dhex qariyay isla miiska oo faaruq u muuqda marka dusha sare laga eegayo. baaritaankii koowaad waxaa loo haystay in Eli Cohen uu iska yahay muwaadin Carbeed oo laakiin ay shaqaaleysiisatay Mossad oo Israa'iil u basaasayay, mana aysan ogeyn meesha uu ka yimid. 4 maalmood ee ugu horeysay sirdoonku waxa ay la joogeen dhismihii uu ku noolaa. wax su'aalo iyo cabsi gelin midna laguma samayn. waxa ay doonayeen in ay ogaadaan cidda soo booqanaysa isaga. waxay jileen xaalad caadi ah ayaga oo muujinaya sida in aysan waxba ka jirin dhismaha. 6 maalmood ayaa ka soo wareegtay maalintii la qabtay Cohen oo ahayd 18 January 1965. markaas kadib ayay si rasmi ah u shaaciyeen in ay soo qabteen basaas Sahyuuni ah. kadib sirdoonku wuxuu la kulmay Amin al-Hafiz madaxweynihii xilligaasi. madaxweynuhu waxa uu sheegay sirdoonku in ay si fiican u baaraan ninkan, sababtoo ah buu yiri ninkan Carab ma aha, waa Yahuudi asal ah. baaritaanadii markii lagu laabtay kadib waxaaba caddaatay in ninkan uu yahay Yahuudi, laakiin uu ku guuleystay inuu iska dhigo lagana rumaysto in uu yahay nin Carab asal ah. baaritaanada oo muddo 4 bilood ah socday kadib, maxkamad ciidamadu leeyihiin ayaa go'aamisay in Cohen la qaarijiyo, laakiin waxa markiiba soo taray cadaadis iyo culeysyo Syria lagu qasbayo in aysan ninkaasi qaarijin. Israa'iil waxa ay si adag ugu hanjabtay in ay duqeymo military fulin doonto haddii xukunka qaarijinta ah lagu fuliyo Cohen. laakiin madaxweynihii Syria Amin al-Hafiz ayaa u arkay hadma uu sii daba dheeraado kiiska ninkan in cadaadiskuna uu sii kordhi doono, isla markaana Israa'iil xitaa ay isu arki doonto in ay Syria hanjabaad ku cabsi gelin karto. sidaas darteed Cohen waa la khaarijiyay. isla maalinta la khaarijiyay Cohen, Israa'iil waxa ay sharfaysay sirdoonkoodii Cohen iyaga oo ku tilmaamayay halyeey qaran, geesi ummadiisa u halgamay iyo tilmaamooyin kale oo wanaagsan. xitaa markii dambe taalo ayay ka dhex sameeyeen gudaha dhulka ay Israa'iil maamusho.